السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتم بدأودياش قيمها هي قدرين تمضن ميل كستو أتشوفنا هي مرة بعد أنت سود وهذا كل سود وهذا هضم من شو يوري برنامج كي ويدي أنا جو هضم على الجلا يا على بالله السعودية ميل ربع نشوفيه مرة ربع إذا هاي وحنا دين ساعة السماعات الحسين السين هذا الله ضوء يقولوا إن ضحكوا قاتان فكر كذا أو وكلا بحرين كهذا هاي السياسة يقولوا برنامج كلا ما أنت وحنا دين وذا سفيان الشيخ أحمد oo sheegay ama shaaciyay maalmo ka hor inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha dalka Soomaaliya. Sufyaan Sheekh Axmed oo kusoo dhaweynaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وري خدمة عدعاد. Thank you very much. ودوهي وما تنتهي. سفيانو bal intaan ugu galin qodobka siyaasadda oo maanta halkaan aan ka hadli doono waxaan rabaa bal magacaaga saddexan inaad u sheegtid bulshada ku daawanaysa taageerayaasha. سفيان شيخ أحمد شيخ محمد قعندير كاسو مقعاga وانا ناس أبوي waxaa jira magac kale oo social media aad laga yaqaan taake kaasna xagee ka yimid taake waana naas markii aan yaraa dhalinyaradii ilmihii aan la ciyaari jiray ay bixiyeen baa ku bixiyeen waa tahay goorma ayay kugu dhalatay inaad isku soo taagtid inaad noqotid musharax arrintaas kuma ka fakartay سادوك تهبا مدو أنا حسب كنا تلكون وروح على أساس لا بكون يكودي مدة داس دير وحن كجرني إنه وحقرنه تاريخ الرادينو كشقينو سيدي ودن كأمن كفكرنو سيدي ودن كلهور مريلها وحن كبحنا وقتي يلا عقل بدبا مدو هذا اللي جد جوجو رمضان كهذا الصورة في كيكوري waxaan bilownay aan shaacino ololihii aan rabnay wadankan wax ku bedelno mesela sida caalamka oo kaleeto haybta koorka oo kaleeto democracy waxa la yiraahdo waxa soo dhan waxaan rajaynaynay marka arrintaas banaanka aan soo dhigno in shacabka Soomaaliyeed ama dadka musharaxiinta oo siyaasadda u loolamaahay ay arrintaas dhagaa ku qaadaan runtiina isku dayaan macnaha aan aragno saameynta bulshada inay taabatay muddo markii aan sameynay baaritaan waxa noo soo baxday dhamaanba tilaabooyinka ay qaadayaan dadka musharaxiinta ahi inay ku socdaan wadadii kuwii hore ay ku socdeen oo ay shacabka Soomaaliyeed aysan ka fakareen dantooda ay ka fakarayaan danta goonida ayadu leeyihiin arrintaas waxay nagu kaliftay markii aan weynay shakhsiyadka noocaasa inaan u istaagno xilka madaxweynenimada aniguna aan noqdo musharax u taagan xilka madaxweynenimada ee ka socda xisbiga Talakno waa tahay Soomaaliya waxa madax ka noqday madax fara badan soo martay haddana kuwa ay u taagan u loolamaya aduu maxaad kaga duwan tahay kuwaas anigu waxaan kaga duwanahay saddex sabab haddaan reer Talakno shakhsiyadeeda anigu waxaan kaga duwanahay anigu waxaan haysanaa ama waxaan keenay miiska soo saarnay wax isbedel la taaban karo oo ka shaqeynaya in uu xalliyo dhibaato wadanka jira sida مثلا إن بدلوا الدستور كوكلته أو كتاب كجامعة نسكوله سيدا إن بدلوا عنك أسنان تقرنك سيدا إن بدلوا أمان ترتنا هاي تكوركا سيدا إن أنا نو أقولانين إنه حلقة بتوقف له باسبورلي سيدا إن ترنو حل هذا ديمقراطية إن الله نمان النظام أسب أو الدولة النمو أو ديدن أما عن صورة قليل إنه بدن كصومالي إنه كله انقلاب حلقة إلى سكول جيو يوحي لمدا ساسا كجدونا kuwa kale ee u doodaya xilka madaxweynenimo rabay shacabka Soomaaliyeed markay la hadlayaan faruriyaha u dhaqaajiyaan waxaan ka wadaa inuu yiraahdo qofkii waxaad igu doorataan daris wanaag waxaad igu doorataan Soomaalinimo waxaas anagu waxaan u aragnaa in shacabka Soomaaliyeed aan hore loo wadin mana ahan wax isbedel oo shacabka Soomaaliyeed ay u baahan wadankan wuxuu u baahan yahay isbedel siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dhaqanba in la sameeyo si wadanka loo badbaadiyo haddii xilka macnaha sidaan hadda ku socono waxaan ku qasbanahay dagaalka inaan ku laaban waxaan ku qasbanahay in kheyraadka wadankeena la qaato waxaan ku qasbanahay in siyaasadda wadanka laga maamulo meelan Soomaaliya ahayn anaguna waa soo jeednaa arrintaas waa tahay carabka waxaad ku dhufatay laba baasaboor adigu meeqa sharci baad leedahay anigu hal baasaboor kaliya leh baasaboorka Soomaaliya weligii ma qaadan baasaboor kale weligii wadanka lama dhaaran dawlad kale xil uma qabanin wadanka Soomaaliya baasaboorkiisa bisan leh hadda waxaad ku nooshay Kenya waxaad soo kala ku samaratay Canada iyo Mareykan baasaboorada kuwaas baasaboor weligii ma qaadan baasaboor markaan tago wadanka markaa tagtid waxaa jira waqti aad qaadato baasaboorka Canada waxaan ka soo tagay intaan baasaboorka qaadan Mareykankana ma aanan qaadan baasaboor waxyaabaha la igu xiray oo xabsiga aan ku galay waxaa kamid ahaa su'aalihii markii la weydiinayay maxaad ku diiday baasaboorka inaad qaadato because markasto interview uu yimaado dib aan isu dhigi jiray waxaanan ku fakarsanaa ama aan diyaar u ahaa ama aan ka fakarin haddaan reer Talakno nahay inaan wadanka nimaadno wadanka u shaqeyno waxaan aaminsanahay qofka labada baasaboor leh inuusan u qalmin ama aysan ahayn ba macquul inuu wadanka la xilka qabto ama wadanka Soomaaliya uu xilka qabto asoo laba baasaboor
waxaad ka dhawaajisay waxaan bedelaynaa dastuurka Soomaaliya dastuur lagu dhaqmo intaas sano soo jeedin inaad bedesho kugu fududahay iyo timka caalamka dastuurka waa la bedelaa hodman wariyo hodman wax dhib badan maaha waxay u baahan tahay shacabku inuu dareemo ama ay timaado baahida shacabku uu qabo in la bedelo waxaa ugu dambaysa hadda Chile waa la bedelay dastuurkeeda 2 bilood ka hor waxaa la bedelay hadda Peru waxaa la bedelayaa Mali dhowr wadanku markuu xadaarada dadku markay kacdo ama dadku ay wax bartaan waxay fahmaan waxa ka qaldan dhibaatada haysata sida dareedeeda la bedela dastuurka annagu dastuur waa leenahay أول هو كينا اللي بدله دستور كإسلام كان لهين دستور كإسلام كان اللي كبدلي كون يسقال بقول يكوبي لحنا كي ميت كي قال أنا لو كان كاس وحرنا إنتان ماشي كسرنا كي إسلام يعني هو لهين إلهي ونسود جي وقفي عن عالم كدستور كفي عن وسنجرين حتى أمر كان لو جامعة كوجرنا أنا شقيني إن ضد كاس دين الإسلام كأنا مثلاً أيجا كل شيء الدستور كفي عن وسنجر دستور كإسلام نظام قرنيه يسوق قرنيه كسرنا إن قادنا شعب الصومالي هو الإسلام كل جود قف ديدن شعب الصومالي هذا أو ديدن إن دين الإسلام كله رقنا مجرى منطق هذا واحد الشخص السعودي أو مشرح سيدا عن نشيط absolutely مجلس الدولة يعيد كلام قرب تعلم عنه وحتى أنا تشينه absolutely الصومالي وحي أكل دقنت هاي قبيلة يوم قبل الله سيبات ربطنا أنت سوق أنت هل مرفكر كذا دو كلها وقرا دعيس عنه عيبة ربطنا فقبت وضيع ربطنا دمرت أهضمن هذه هذا ما سنتهي أنا وحن استعمالنا قاعدة هرول لو دجيي الله سبحانه وتعالى ودجيي أو عديي أمل لتجربيي إن أي شقينيس قاعدة ناس واحد تاي دستور كإسلام كان شعب كالصوماليين لبعض ما أنت كالهايستوي وكلا تاجيهم لبعض كانت إنس آمن وايو لبعض كانت قبيلة إن النقطة وح أجوري أم دين أجوري شعب كالصوماليين ما أنت وكل جنيه لبعض كانت إن ودم الشيء أي ودن كانوا سوفر جليان لبعض كانت إن قفك حلك وتاجني وياهي قف يرى هذا أنا جاية وقبيلة بالبنك السعودية قبيلة وكل جايو وضدك معناها معقول كهال loo diido waxay tahay in laga tagay dastuurka islaamka iyo nidaamka fiicna haddii dastuurka islaamka wadanka shacabka Soomaaliyeed ay doortaan dhibaatooyinkaas dhan oo aad ka hadlayso iyo kuwa kale fara badan oo aanan maanta ama taaba karin ama aan fahmi karin ba waxa la sameeyaa waa tahay Soomaaliyeed dad badan bay intay kursi geysay haddana ay ka shaleedaan absolutely ayagoo cilada ay horay u lahaayeen dhahay waa ka madax banaan ama lagu tuhmeeyay adiga yaa u balan qaadaya Soomaaliya inaad dastuurkaasna bedeli doontid haddii ay ku fududaato qabiilad ka madax banaan tahay anagu waxaan la nimid nidaam cusub oo dawladeed nidaamka cusub oo dawladeed wuxuu leeyahay saddex hoggaan hoggaanka qorsheynta hoggaanka maxkamadaha iyo hoggaanka fulinta saddexdaas hoggaan ujeedadoodu waxay tahay inaan wadanka la inqilaabi karin inaan qof ku xadgudbi karin inaan xilka la isku dhiji karin saddexdaas hoggaan nidaamkaas dawladeed wuxuu u diidayaa aniga iyo shakhsi kaleba ama gadaal ha ka yimaado ama xilka markaas hayo wuxuu u diidayaa oo uusan u ogolaanaynin in ay wadanka ku xadgudbaan inay wadanka waxay rabaan ka samaystaan in wadanka la inqilaabo sababta aan nidaamka u sameeyno waxay tahay waa safety waxa weeyaan waa ilaalin ama ammaanka wadanka in laga ilaaliyo shakhsi inuu ku xadgudbo ama shakhsi banaanka yimaado ama gudaha waxay hadan ku daro hodman adoo iga raaliya saddexdaas hoggaan waa hoggaanka qorsheynta hoggaanka maxkamadaha iyo hoggaanka fulinta wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen shaqadooda kaliya waxay tahay in ay fuliyaan wixii lagu heshiiyay hoggaanka maxkamaduhu waxa hoostiga booliiska ciidamada asluubta ciidamada dambi baarista maxkamadaha oo dhan ay hoostiga waxay leeyihiin ciidamo military iyo kuwo oo sirdoon u gooniya hoggaanka fulintuna sidoo kale wuxuu leeyahay ciidamo military iyo sirdoon u gooniya ujeedadan saas ugu sameeyna waxay tahay inaan wadanka inqilaab general uusan inqilaabi karin madaxweyne isku dhigi karin hoggaanka kale ee qorsheynta waxa hoostiga xildhibaanada iyo aqalka odayaasha ama guurtida waxa la yiraahdo saddexdaas hoggaan kale la shaqeyn kara macnaha qof laba hoggaan kaba shaqeyn karo isla markaasi hoggaan kale la shaqeeya oo macnaha shaqadiisa fadhigelin kara ma jiro wadanku sidaas markaan nidaamka noocaas markaan qaadano waxa inoo suurtagelaysa inaan wadanka la inqilaabi karin qof inuusan bedeli karin qof inuusan wuxuu raba ka sameey karin shacabku waxay ku soo heshiyaan dastuurka islaamkana waxa ilaalinaya hoggaanka maxaakiimta oo iyagu aan dhicin oo ugu talagalnay inay jiraan forever macnaha noloshooda inta ka hartay inay xilka hayaan oo kaliya looga qaadi karo ama inay dambi qaran galaan ama inay ay noqdaan shaqada saysan qaban karin arintaasi marka aniga iyo shakhsi kale waxay u diidaysaa inuusan wax isbedela uusan sameey karin asagu wuxuu shacabku ballan qaado maahan waa tahay waxaad ku soo celcelisaa haddaan nahay talo ku nool horta adiga iyo talo ku nool iyo tiimka aad wadatid Soomaaliya waa la ogyahay qof kasto imaado qof ayaa dabada ka riixay dawladda baa wata ninka aad wata annaga waxaan wata Allah subhanahu wa ta'ala waxaan rabnaa dastuurka islaamka inaan ku dhaqano wixii Allah yiri inaan ku dhaqano iyo shacabka Soomaaliyeed inay taageersan waa tahay inta badan waxaa lagu arkaa adiga oo meelaha ka hadlaysa ama wareysi bixinaysa ama hadlaya ama arrimo kala sharaxaya
dadka kale kula shaqeeya ma kuwa dahdaweysa ku jiraan la arag ba horey waxaan u sheegay wariye hodman sababta ammaanka daraadiis ama ammaankeena daraadiis in aan xubnaha dhexe ama central committee waxa la yiraahdo oo tala ku nool in mar walbaaba hal qof uu banaanka joogi karo waa 28 qof inta kaleeto waa committee ma soo baxan laakiin maantay xubnaha tala ku nool maanta Soomaaliya meel kasta ay joogaan waa soo shacab baxeen waxaan leenahay website macnaha pages aan ku qorana magacyada iyo TV iyo video ay ku jiraan soo duubeen maalintii ugu dambeysay intii la sheegay 820 qof aan maraynaa horena waa socona waa dadka diyaar ku ah inay tala ku nool shaqadeeda qabtaan taageerayaasha ma oo tala ku nool ku soo biiro way marka manihin dad qarsoon muqdisho ay joogaan kismaayo ay joogaan burco ay joogaan burco qaar kamid ah lagu xiray oo hadana la soo daayay arrinta qadiyada daraadeed marka waa badana waa tahay waxaad ka dhawaajisay xaaladda ammaanka gudaha xaaladda ammaankeena dartood bay kuwaas u qarsoon yihiin haddii aan khaldanayn adiga yaa ku ilaaliyay Nairobi nala joogtaa anagu markii aan dejinayna qaacidada aad u mahadsantahay qaacidada markaan dejinayna waxaan ugu talagalnay waxa la dhaho isbedelka ammaanka aniga nabadgelyadaydu Allah subhanahu wa ta'ala ku tirsantaa laakiin waxa la og yahay ama cadawga tala ku nool iyo cadawga islaamka waxay og yihiin haddii maanta anigu la dilo ama dib la gaarsiiyo qof kala soo baxay marka qofka cadawgeena anaga waxay u qabanayso ama ay u tarayso oo faa'iido ka gaaray in aniga la dilo ma jirto waka marka ammaankaygu halkaas uu ku sugan yahay alxamdulillah mahadsan hadda kor waxaad aad uga hadashay arrinta calanka Soomaaliya dad badan waxay ka soo horjeesteen fikirkaagi waxayna u arkeen attention ku raadinaysa in lagu soo fiiriyo arrinta naga war arrinta calanka Soomaaliyeed markii aan ka hadalnay runtii waxa soo dhaway dad fara badan dad fara badan oo mucaaradana waa soo baxeen waa wada ognahay taas ilaa inta la isaariyo waxyaabo kale oo wax alla wixii la dhihi karay la yiri laakiin maanta qaabka ay taagantahay wuxuu yahay in shacabkii Soomaaliyeed intoodii wax baratay intooda mutacallimiinta intooda awood u leh inay baaritaan sameeyaan waa ka qanceen waan ku kalsoon yihiin waxayna rabaan in la bedelo waxa kale oo raba in la bedelo ugu yaraan 2 milyan oo Soomaaliya oo la yiraahdo Somaliland oo aan rabin calankan oo lagu xasuuqay ama dhiigooda lagu galay ayaguna in la bedelay raba anagu haddaan reetal ku noolahay calanka maanta waxaan nooga dhib badan hayta koorka calanka waxaan aaminsanahay waxaan noo cad maantay inta ay ka imaanayso nidaam dawladeed oo lagu kalsoon yahay oo la isku raaci karo ama wax looga hadli karo in bedelkiisu ku xiran yahay laakiin waxaan nooga dhib badan maanta oo nooga culays badan waxa la yiraahdaa hayta koorka oo runtii dadku waa faruuriyahay ka dhaqaajiyaan laakiin ficilkii lama hayo waana arrinta kaliya oo maanta noogu dhib badan haddaan reetal ku noolahay hayta koorka wuxuu ka dhex jiraa Soomaalida muddo badan ayuu soo jiray walow anaga dhan qalbiga ka jecelnahay inuu suuro haddana wax meesha si taagan adigu gabar reeraha lahayb sooca inaad guursatid ma jeclaan lahayd wiilkaaga sama ku daraysaa gabar iyaga ah gabadhaada hadaysa ku keensatay in qabiilada lahaybta koora ma siinaysaa aniga gabadhaydu hadday ii keensato yes gabadhaydu wax alla waxay ii keensato gabdhahayga guurka gaaray hadday ii keensadaan nin islaam ah haybta koorma nin islaam ah ciduu raba ha ahaado meeshuu rabaa ka yimaado waa siina waxaan kusii farxi lahaa ninkaas inuu yahay Soomaali oo luqadda Soomaaliga igula hadlayo waa kaga sii farxi lahaa su-aashaas jawaabteedu gabadheedu hadday ii keensato waa siin lahaa wiilkaygu hadduu keensato waa siin lahaa anigana hadda ka horna waa isku dayay maantana haddaan fursad u helo gabar dadkaas la haybta kooraa oo chance u helo kama hakadin inaan guursado waa tahay Soomaalida gabdhaheedu cid kastay guursadaan wiilashana cid kastay guursadaan kuwa luqada kale ku hadlayaan guursanaa iska daa kuwa muslim ahayn bay gabdhaha inta noo keenaan baan ku qanacnaa maxaa diidaya oo Soomaalida ka xadiday baad isleedahay inay wiil in adeerkeeda af Soomaali kula hadlaayeen ay qabiilku ta korto su-aashaasi waa su-aasha qarniga la isweydiinayo oo dadka Soomaalida ilaa hadda aan la yaabanahay haddaan reetal ku noolahay baaritaan markaan sameynay xitaa dadka aan la hadalnay qof ilaa hadda noo sheegay caqli silsiladeed oo aan fahmi karno oo aan arrintaas iskaga dhaafi karno ma laha macnaha aan ku salayn karna ma jiro waxaa soo baxday macnaha markaan dadka kala hadalno aniga waxa la yiraahdo ma guursatid wiilkaaga ma siin lahayd gabadhaada ma siin lahayd waxaasoo dhan su-aashaas jawaabteedu waa ha aniga guursan lahaa gabadheedu waa siila wiilka waa siila ujeedada marka ka dambaysa waxay tahay gumaystihii Talyaanigu marka uu yimid waxa uu isku dayay wadanka intuu qaybiyo inuu maamulo waxa abuuray gumaystihii abuuray dadkan la leeyahay yaxaro iyo midgo iyo nasab dhima la leeyahay maanta haddaad fiiriso dad kale oo ka qorxoon yihiin Soomaalida markaan qorxo ka hadlayno dhaqanka Soomaalidu ay taqaan waa ka edeb badan yihiin waa ka akhlaaq badan yihiin dadkaasi waxay dadkii boqorada ahaa dadkii wadanka maamuli
jiray dadkii technology-ga hayay dadkii dharka samay jiray digsida toli jiray warmada toli jiray dadkii hubka noo samay jiray si marka naloola dagaalamo oo nala kaga saaro inaan dhaqaale iyo horumar gaarno ayagiyaa waxaa nala kaga dhigay dad yasan anaguna waa aqbalnay waa dhaqan ka hara dhaqanka gubaystaha tala ku nooladaanahay waxaan ku daba jirnaa taariikhdoodii oon qaar badan helnay oon qorayno waxaan rabnaa haddii ala yidhahdo inaan ku guulaysano arrintaas inaan tirtirno dadkaasna positionka ay leeyihiin oo ah bulshada inay ugu sarreeyaan haddiiba kala sarrayna ay jirto inkastoo anagu aan aaminsanahay ina akramakum cindallahi atqaakum meesha ay leeyihiin inaan ku celino waa tahay haddii intaan mawduuca ugu soo laabano siyaasadda dib aan ugu soo laabano soomaaliya muddo aada u fara badan waxaa ka dagaalama niman la yihahdo al-shabaab duurka ayay ku jiraan waxay diidan yihiin calanka soomaaliya waxay wataan calan madoow ayago ay samaysteen waxayna markasta ay hadalladooda kusoo daraan ama ay sheegaan inay dastuurka iyo kitaabka wax ku xukumi doonaan adii ayago halkaas iska maajgaraynaysan aad isaga egtihiin xerarka idinka dhexeey buu yahay hodmar aad iyo aad umahadsan tahay thank you very much annagu haddaan reer tala ku noolnahay waxaan dad islaam haddaan islaam sheegtana waxaan rabaa oo igu qasaba inaan ku qanco kitaabka islaamka iyo dastuurka islaamka inaan ku qanco qof kastoo islaamiya arrintaas waa aaminsan yahay ma aha nimankaas aad sheegayso keligood ma aha dadka islaamka oo dhan ayaa aaminsan ama maqriba joogeen ama sharqi joogeen ama turkiya ahaadeen ama soomaaliya ahaadeen meel kastoo qof islaami uu joogo hadduu islaam dhaba uu yahay waa inuu aamino ku qanco dastuurka islaamka waa mid calanka hadday arkeen waxa anagu aan warin anagu baaritaankooda ma aanan fiirin laakiin calankani waa calan astaamo diineed oo kale ay ku jiraan calaamadii kirishtaanka ku jirta tii shaydaanka lagu cabuday ku jirta waa inaan iska bedelo annagu waxaan aaminsannahay soomaaliya inta isku timaado inay calan samaysato ayagu ka turjuma taariikhdooda ka turjuma dhaqankooda iyo wadankooda waxay yihiin iyo diintooda hadduu noqdo calanka madowga ay wataan iyo mid cadaana iyo mid kale hadduu noqdo wixii soomaaliya isku afgarato oo saddexdaas leh sababood leh dhaqankii diintii iyo taariikhdana ka turjumaya waxa waa waxay tala ku nool ay rabto waxaan rabaa oo kale macnaa shacabka Soomaaliyeed in la wadaago arrinta tala ku nool marka dhinaca kale ka fiirsid waxay xalinaysaa khilaafaadka oo noocaas oo kale wadanka ka jira haddii ay nimankaasi u taagan yihiin in dastuurka islaamka wax lagu maamulo annaguna dastuurka islaamka aan qaadano doodoodii waa dhamaatay dagaalkoodina waa dhamaadeen macnaha taasi marka waxay sheegaysaa tala ku nool xalka ay wado oo ah dastuurka islaamka inuu yahay xalka keliya ee looga bixi karo dhibaatada dagaalka ee macnaha maanta wadanka taagan iyo kumaankum dhibaato oo kaleeto oo cadaalad darro ah oo haytakoorka ah oo dimuqraasiga ah oo ah in dadka lagu xadgudbo oo ah inaan dawlad sheena soo fargelin oo ah dhaqankeena inaan ka tagno waxaas oo dhan xalinaysaa dastuurka islaamka waa xalka keliya waa tahay laakiin su-aasheedan usoo laabto adiga al-shabaab maxiriir baa idinka dhexeeya may anigiyo qof anagu wax kaliyahoona taageeraahi waa shacabka Soomaaliyeed ee aaminsan rabana in lagu dhaqmo dastuurka islaamka waa tahay khibrad intee la eg ayaad u leedahay mase waayo aragnimo intee la eg ayaad ka haystaa inaad Soomaaliya hogaamiso sasa kuugu fududahay well wadanka marka loo hogaaminayo waxaa hadda macnaha maanta jira wadankeena Soomaaliya ka jira qaacido qaldan oo ah qof wadankeena hogaamiyo wadanka qof ma hogaamiyo wadanka waxaa hogaamiya waxaa kooxdaas oo leh siyaasad ama qadiyad ay ka midaysan isku raacaan koox baa hogaamisaha laakiin hal qof baa leader ah oo dalka laga xisaabtamo loo doorto oo la yaqaan absolutely aan ku soo wadaa annagu haddaan reer talkulonahay waxaana koox mutacalimiina aqoon u leh waxaana ay ka hadlayaan baaritaan sameeyey u diyaara inay xilka qabtaan dhisay maantay oo soo keenay inay banaanka keenaan dawladdii ay wax ku maamuli lahaayeen ma aha waxaan gadaal ka fikirayno waxaan keenay nidaamkii iyo dawladdii iyo qaabkii aan wax ku maamuli lahayn banaankaan soo dhigin wadan macnaha xisbi kale oo saas sameeyey ilaa hadda maanta Soomaaliya ma jiro oo anaga ka ahayn talkunool ka ahayn taas waxay sheegaysaa macnaha inaan leenahay kartideeda iyo awoodeeda inaan leenahay waxaan rabaa oo kale shacabka macnaha inaan la wadaago annagu waxaan wax ku maamulaynaa nidaamkaas aan hore u sii sheegnay waxaan hadda kadib sheegayna ma rabno markii aan xilka qabano inaan dhahno inaan raadino markaas waxayna waa degsan yihiin qaacidadan waa degsan tahay waxaa noo degsan qofka wadada xaaqayo ugu hooseeya ilaa qofka ugu sarreeya nidaamka iyo qaabka u shaqaynaayeen oo qorana noo yaala isagana wadan ku maamulayna aqoon ahaan marka la yiraahdo inteena tala ku noola iyo xubnaha cusub hadda kusoo biiray kulligan waxaan leenahay aqoon iyo waayo aragnimo nagu filan oo aan wadanka ku wadi karno waxaan leenahay wadaninimo naga go-an oo wadanka aan ku wadi karno waxaana dad aaminsan in kuna midoobay in dastuurka islaamka kaliya uu xal yahay waa maasanta adaa mudan yaa idin maalgeliya tintiin tala ku nool annaga dhexdeena ismaalgelin annagu waxaan leenahay haddaan tiim tala ku noolnahay qofku marka uu soo galo oo xisbiga kooxda tala ku nool ka mid noqdo waxaa la weydiiyaa inuu asagu wax ka bixiyo waxyaabaha ama qarashaadka tala ku nool ku baxaya cid kaleeto oo tala ku nool banaankeeda oo na maalgelisahay ma jirta in hal ekaatay
marka dhaqaalihiinu waa mid ku filan inaad xitaa madaxda dalka aad dalka hogaamisaan dhaqaalihiinu mid taas ku filan oo baahidina dabooli kara mayahay markaad saas leedahay waxaan qiyaasayaa in su-aashaadu inay ku salaysan tahay qaabka hadda wax loo sameeyo oo alaaluushka la bixiyo oo la iibsado dadka no anagu dhaqaalaha noocaas ma haysano mana rabno inaan wax iibsano qorsheheena kuma jirto qof laaluush inaan siino xilka ku nimaadno kuma jirto qorsheheena because anagu waxaan u aragnaa haddiiba macnaha uma aragno waxa la yiraahdo waxaan cadaaladda ama xaq ahayn inay cadaaladda xaq keeni karo uma aragno haddii marka qofkii anigu aan iibsado oo aan ama guri ku iibsado ama aan qabyaalad ku iibsado labada kay rabtaa ahaatee qofkaas waddanka xal uma keeni karo talakulnoona qaacidadaas anagu ma lihin sidaa anagu waxa kaliyahoon iskaga filana waxay tahay in anagu isla xiriirno ololaheena dadka inaan wax u sheegno intaas in ku filan umana baahnin lacag fara badan oo runtii aan dadku iibsano because maba iibsan karnaba hantida noocaasna ma haysano waa tahay dad badan waxaa madaxooda ka guuxaya Sufyaan waxaa lagu bartay oo kusoo shaacbaxay arrintii calanka iyo weliba sheekada afarta xaas dad badan waxay isleeyihiin Sufyaan wuxuu yidhi afar xaas baan maamulay Soomaaliya dhan baan maamuli karaa isu keeni karaa arrinta maxaa jawaabaysa well arrintaasi runtii waa misplay macnaha qaacida sax ma aha hase yeeshee waxaa run oo xaqiiqaho macnaha diinta islaamka ama dhaqamada caalamka lagu yaqaana ninku hadduu afar xaas maamuli karo wuxuu waa aragnimo oo dheeraada wey hase yeeshee taasi ma aha wax ku siinaya ama qaacido ku saamaxaysa inaad tirahdo afar xaas maamuli karaa waddanka waa maamuli karaa isma qabata arrintaas hase yeeshee waa aragnimo inteeda leeg oo muhiim ah markaad rabtid inaad wax maamushid loo baahan yahay waayo diinta islaamka marka la dooranayo leaderka qofka waxyaabaha qaacidada ku jirta ama hogaamiye marka diinta islaamka la dooranayo diinta islaamka lagu saleynayo waxa ku jirta ninka uu ka reer badan yahay waa laga hormariya waayo aragnimo uu leeyahay waayo wuxuu leeyahay awoodii wax ku maamuli lahaa in afar xaas la maamulana ma aha wax dhib yar waa wax runtii qofkuusan ilaahay u sahlin ku adag waa tahay adigu Sufyaano qof noocee ayaa tahay shakhsiyad noocee anigu waxaan ahaa shakhsi bini aadana oo aaminsan dastuurka islaamka aaminsan kitaabka jaamaca lagu dhaqmo aaminsan diinta islaamku inay sax tahay aaminsan dastuurka islaamku inuu yahay dastuurka kaliya ee wax lagu badbaadi karo waxaan saas markaan leeyahay waxaan ku saleynayaa taas waxaan kasoo mid noqday inaan wax ka qoro ama aan daraasad ku sameeyo 8 dastuur oo 8 waddan leeyihiin oo kala duwan caalamka kulligood sanad kasta waa la bedelaa waxbaa lagu daraa kulligood dhibaatooyin leeyihiin dadkii aan isla shaqaynaynay oo wadamadaas ku jiray waxaan ka dhagaystay afkooda inay dhowr mar ku soo celiyeen in dastuurka islaamku uu yahay dastuurka kaliya ee kaamilka ah ee wax khalad aysan ku jirin ayna ii sheegeen nin hadda kor waxaan xusuustaa professor oo la yiraahdo Cantala Piedras macnaha macallimiintii Spain jaamacadda Madrid Complutense xarunteeda São Marcos wax igu dhigay wuxuu yiri maalmaha kamid ah ayuu wuxuu yiri me sorprende que vosotros los tenéis una constitución perfecta, pero no lo hacéis. ¿Por qué? wuxuu yiri waxa iga waalu yiri waxa iga cajab galiyay inaad haysataan dastuur perfect ah laakiin ma samaysaan kuma dhaqantaan why marka anigu waxaan shakhsiga noocaasa dhabartayda aniga shakhsiyadaydu waxay ka kooban tahay waxay ku salaysan tahay dastuurka islaamka inuu yahay wax saxda waddanka lagu badbaadi karo waddankeena waa jecel dabeecadaada markaan soo laabano markaan taag soo laabano dabeecadaada waa qof noocayaad anigu waxaan ahay dhaqankaaga oo usually waxaa jirta mahmaayoyin badan oo caalamka laga isticmaalo anigu waxaan qof aan isla weynayn waxaan ahay shakhsi qof kasta oo hadda markaan wadadaas maraayo haddii lay qabto qof kasta waa la istaagaa waa u sheekeeyaa waa la hadlaa qof kasta waxaan isku dayaa fikirkeena inaan ka dhaadhicino campaignkeena meeshaan lacag ka bixi lahayn afkeena aan isticmaalnaa shakhsi noocaas waxaan ahay shakhsi kasta oo Soomaaliya oo awood u leeyahay intuu la istaago inuu la fadhiisto waxaan jeclahay inaan kaga daydo khuluqaas rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam mahadsan markii 8 wadan dastuurka wax ka soo bedeshay adiga oo nin Soomaali ah maxaa lagu soo xushay kama soo bedelin markaad aad ka soo shaqeysay sorry shaqeyn ma markaad jaamacadda ku jirtid qofka marka la diyaarinayo waxyaabaha qaarkood maadaama anigu aan baranayo wax la yiraahdo political science oo ah afar nooc oo kala duwan caalamka leh theory constitution philosophy iyo legislature waxa la yiraahdo sharci dejinta waxaasna markaan baranayay qayb kamid ah waxay ku jirtaa inaad at least diimaha caalamkana inaad barato oo diintu inta badan ayada salka constitution waa salku haya ama dastuurka waa salku haya because wadanka dhaqankiisa laga sameeyaa dastuurka macnaha intaan ka ehenkeenna annaga dastuurkeena diinta islaamka iyo dastuurkeena waa kala fog yihiin caalamka laakiin badanaa waa isku dhow yihiin
marka waa inaad barato dastuurkiina inaad barato diintiina inaad barato marka maadaama diimihii aan bartay dastuuradiina waa bartay markii aad arday tahay jaamacadda dhiganaysid waa inaad barato waxna ka qorto si loo fiiriyo wixii inaad fahantay ujeedadu waa taas waa tahay hal su-aal oo dad badan maskaxdooda ka guuxaysa baan rabaa inaan ku weydiiyo anaan doonayn inaan ku xadgudbo waxaa jirtay xilli laga joogo 30 sano in lagugu eedeeyo oo Nairobi dhan ay isqabsatay social media ay aad arrinta uga hadleen inaad dishay dad aad isla shaqayn jirteen oo wariyaal u badnaa aduguna xilligaas aad wariye ahayd arrintaas maxaad uga jawaabaysaa arrintaas horena waa uga jawaabay waxay ahayd been abuur waxay ahayd dad cadowgayga ah oo runtii ku talagalay in ay dhambaalkii hadday dili waayaan dhambaal wadaha inay dilaan oo weeraraan wax ka jirana male in halekaatay dad badan ayaa kasoo hadlay kuwa Soomaaliya jooga kuwa daafaha caalamka kale ku nool arrintii oo dhan waxay noqotay wax aan moodin isku wada egyihiin marka arrintaas seebe intaas oo qof oo propaganda isku soo aruursatay waxaan u maleynayaa berigii hore markii arrintan la waday waa ka aamustay dadkii aan isnaqaan wariyaasha waaweyn ku jirta Soomaaliya waa ka aamustay ma lacagtii aad ku soo gaartay ma lacag ma soo gaarin qof la ruush qaatan aanu meeyay waa kaftamayna arrintaas wax in hal ekata ka jira malaha waxay ahayd been abuur gadaalna waa ka soo baxday inay been abuur ahayd sidii loo gudbay waa tahay waxaan soo gaarnay guntiga gabagabada barnaamijka taageerayaasha dadka ku daawanaya maxaa dhahaysaa anaga waa mahadsantaha marka ugu horeysa thank you very much Hodman Cadaad we appreciate in macnaha aad fursadan aan helno anaga haddaan reetal ku noolahay waxaan u taaganahay 6 qodob 6daas qodob waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay xusuustaan 6daas qodobna waxay bedelayaan oo rabnaa inaan ku bedelo wadankeena oo noqdo wadan cusub waxay koob ka ah dastuurka islaamka inaan qaado dastuurka hadda inoo qoran wuxuu ka soo horjeedaa dastuurka islaamka qodobada ka soo jeeda waxaa kamid ah xeerka ciqaabta qaangaarka dhaqanka familiga diinta sida loo faafiyo waxyaabahaas oo dhan waxay ka soo jeedaan dastuurka islaamka waa midda koowaad midda labaad bedel waxa weeyaan wax la yiraahdo democracy wax la yiraahdo democracy-gu waa diinta ka soo horjeeda diinta islaamka oo sharcigeeda ama qodobkeeda ugu dhaxeeyo oo buuxda uu yahay wax la yiraahdo secularism oo ah inaan diin la qaadan karin waxaan bedelaynaa haybta koorka oo shacabka Soomaaliyeed uu fahamsan yahay oo maanta waxyaabaha Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu adoonsaday ay kamid tahay inaan samaynin sida hadda aan samayno waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed hadda qisa ayaa ka dhacday gobolada dhexe gabadha loo diiday wiilkaas gabar ayada ilma adeer la ninka ku yahay halkan ku qaba nin waxa ku qaba Kenyatta mana naqaan diinta uu leeyahay macnaha marka dadka waxa rabaa inay isweydiiyaan su'aashaas waxa kaloo noola socda inaan bedelno waxa la yiraahdo calanka iyo astaanta qaranka waxaan la nimid aan rabnaa inaysan xil ka qaban wadanka Soomaaliya qof laba baasaboor leh oo soo dhaartay wadankani inuu difaaco daacad u ahaado waxaan qodobkeena la xanuuqiyaa inaan la nimid nidaam cusub oo dawladeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay nagu taageeraan arrintaas isbedelkaas siyaasadeed ee wadanka aan ka sameeyno lamid yihiin anagu axsaabta kala siyaasadeed because axsaabta kala siyaasadeed waxay shacabka Soomaaliyeed u dhaqaajiyaan farwiyaha anaga farwiyaha dhaqaajis maaha ficil aan la nimaanayna waa maasanta waxa ku soo celisay maanta in farwiyaha dhaqaajis arrintaas maxay noqon kartaa farwiyaha dhaqaajis waxay noqon kartaa inaan ku iraado mesela igu dooro inaan Soomaalinimo haddaan ku iraado Soomaalinimo igu dooro micnaheedu muxuu yahay maxaad ii sheegtay macnaha Soomaali waa isla nahay ma Ethiopian baad ahayd ma Kenyatta maxaad ahayd ama aad tiraahdo igu doona daris walaag muxuu yahay macnaha shacabka Soomaaliyeed in farwiyaha loo dhaqaajiyo waxa keenay because shacabku ma fahmi karaan waxa la leeyahay farwiyaha dhaqaajis marka waxa la yiraahdaa inaad u sheegto hadal wax macnaan hadalkaas u lahayn in la ekaatay marka anagu ku iraahdo Soomaalinimo igu dooro ta Soomaali waa isla nahay wax cusub ima aadan keenin laakiin waxaan rabaa in lagu iraahdo haddaad madaxweynaha wadanka rabtay inaad hogaamisid waa inaad la timaado wax la taaban karo oo shacabka Soomaaliyeed dan ugu jirto oo xalinaya dhibaato hadda taagan hadda laakiin tiraahdo igu dooro Soomaalinimo waxaad sheegtay cusub ma jiraan Soomaaliya tahay Soomaaliya nahay waxa ka fiican inaad tiraahdo iska kay dooro waa ka bax waa tahay aad ma sida Sufyaan Sheekh Axmed oo kaga mahadcelinaya sida quruxda badan ee wareysigan adiga qabashay igana qayb qaatay waa tahay daawadiin si kusoo gabagabeyna wareysiga gaarka ayaan la yeelnay Sufyaan Sheekh Axmed oo shaaciyay inuu yahay musharax u taagan madaxtinimada Soomaaliya anigoo Hodman Cadaad Geela ayaa inoo socodsiinay barnaamijka kaamirada ama quruxda badan waxa duubay Cabdiqaadir Kolanto intaan ku kulmayna barnaamijkan mid waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo Soomaaliya nabad السلام عليكم